shirkadda Meta ee leh WhatsApp-ka ayaa shaacisay inay soo kordhisay qaab cusub oo ay macaamiisheeda uga bixi karaan gruubyada lagu daray iyadoo aan la dareemin. sidoo kale shirkadda ayaa macaamiisheeda u sahashay inay xakameeyaan dadka arki kara marka ay qadka ku jiraan ama online-ka yihiin iyo waliba inaan la sawiran karin fariimaha la isugu diro WhatsApp-ka. Mark Zuckerberg oo ah madaxa shirkadda Meta ayaa sheegay in waxyaabahan ay soo kordhiyeen ay ka dhigi doonaan WhatsApp goob ammaan ah oo la mid ah in dadka ay si kafool u wada hadlayaan. habkan cusub ayaa dhaqangeli doona bishan August waxaana laga bilaabi doonaa waddankaasi UK. WhatsApp-ka oo ka mid ah hababka ugu caansan caalamka ee lagu wada xiriiro ayaa marka uu qofka ka baxo gruubka lagu daray waxa ay fariin u dhacdaa xubnaha kale ee halkaa ku jira. fursadan ayaa ah in shakhsiyaadka iyagoo aan la fahmin ay ka baxaan gruubyada ayaa ah qaab cusub oo ay soo kordhisay WhatsApp-ka. dad badan oo ka mid ah kuwa hadda isticmaala WhatsApp-ka ayaa sheegay inay ka xishoodaan ka bixitaanka gruubyada lagu daro maadaama xubnaha ku jira halka ay arki karaan bixitaankooda. Amy Vora oo ka mid ah madaxda WhatsApp-ka ayaa sheegtay in ujeedadoodu tahay sidii ay macaamiishooda u siin lahaayeen awood dheeraada oo ay ku xakameyn karaan cidda hesha fariimaha ay dirayaan. waxaan rumaysannahay in WhatsApp ay tahay aaladda ugu ammaan badan ee si gaar ah loogu sheekaysan karo. ma jirto aalad caalami ah oo heerka ammaankeedu gaarsiisan yahay halka hadda ay marayso WhatsApp ayay tiri. isbeddelkan lagu sameeyey WhatsApp ayaa waxaa ka mid ah in qofka uu dadka kale ka qarin kara joogitaankiisa online-ka ah. John Swong oo ah cilmi-baare ka tirsan macadka The Allen ayaa u sheegay BBC-da in mar kasta ay wanaagsan tahay in macaamiisha ay si buuxda u xakameyn karaan xogtooda. waxayse ay tilmaanteen ilaa isbeddelka cusub ee lagu sameeyey WhatsApp ay si buuxda u fahmayaan ama loogu wargelinayo ay yaraan doonto saameynta ka dhalan doonta. inkastoo aanu jirin waqti cayiman oo ay shirkadda tilmaantay, haddana dabayaaqada bishan waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka bixi karto gruubyada lagugu soo daro ayadoon cidna dareemin bixitaankaaga. waxaana sidoo kale meesha ka baxaya in sawir laga qaato ama screenshot laga qaato qoraalada WhatsApp-ka ee lagu sheekaysto.